أنا أقول حشيء صاحبي جم قلين مركل أيام كوسع لنا دنتظر وحي قلت أنا أسكو كيدي بتانية هديك الوحى وتصوت شعبك أبو قصبيسو عروت عليه كل رد وتتا مستقبل كنا استعمال دوران شغفير دتك عن توريها نعنا نجى ما عنا نداول سنجى دتك حتى معنا دتك كلا أي قصبة وزير كلا وقصبة وزير جولات كلا وقصبة وريا مركل واحد علينا حلقة يا جارة وسكر ما نسع هذيك واحد علينا إنسان كده بنحنا لا جارة سماهن أنا يفيدوا هذيك الدو السوشيال ميديا يا صديقي الشعب كلنا ويركن كل سوري قلبت إنكم قبلنا تبغى يقولون لا ونايان marka ugu horeysa ma video anaga noo saabsan qadka la soo dhigayo dadka dhanna way daawanayaan kadibna waa la iska gudbinaya cid soo tixraacaysan ma lahan aniga ganacsigayga dad xumaan ka raadayso warshadeedana aad xirto midaas dhibaato ma lahan shirkad kale ayaan furanaya isla dabaqi ayaan ka furaya loogadan waa iska bedelaya baakadana waa bedelaya kalarkana waa bedelaya si kala gooni ahna waxaad ogaataa anigana inaan xayeysiinayo dadkana waxaan xaqiijinaya alaabtooda inay marka la gataan isla alaabta marka hore aad ku tilmaamtay inay barxan tahay dadka dhanna waxaad ogaataa inay gadanayaan boor weyn waan dhegsanaynaa anaga dadkana waxaan u sheegaynaa alaabteenna dabiici in ay tahay oo wax qasan aysan ku jirin inta aniga noola midas kuma suurtagelayso dadka rabitaankooda intuu shaqaynaayo adiga hadalkaaga ma shaqaynayo daniel midas oo ku qaldantihiin dadka shacabka masaakiinta ay soo siinaysiin marka hore waa inaad qirtiin dambiilyarna tihiin dambigeed ka hadlaysaan adiga war anaga waxaan aragnay dooli in la kariyo lafiisana beeraha lagu soo daadiyey dadka dirtan jiranna waxaad ogaataa doorooyin 65 nooc loo kariyo inay cunaan chicken tikka chicken burger adiga waa maqashan umaleena dadka markay xaflad jirto waxay cuni jireen mataqaana idli iyo doosa maantana waxay cunayaan mataqaana cunno aad iyo aad u macaan badan markay soo kacaan dadka mishaarada koof bilaabi jiray cunnada ay cunaan dirtaa mataqaanaana cunno enerjigeeda aad iyo aad oo u sareeyo caanahayga ayayna ku darsadaan caanahayga aniga dhowr nooc ayaan ka soo dhigaa midaas moogsoon tahayna adiga annaga hadda heer ayaan gaarnay marka hore dadka lacagta leh ayaa cabi jiray caanaheena xitaa faqiirinta hadda way cabaan ma fahantay waxaana la gadaa 10 rubis waddankeenana waxaa ku nool 1.32 bilyan oo dad ah marka dadkaas waa dadkeena marka seekan ku siiyana inta soo qafadadii aan dhahna sidee ku gaarayaan illa barxa waa qasab duqaad wax tayo leh inta cun lahayd oo 80 sano aad gaar lahayd waxa ka wanaagsan ma taqaana wax barxanana cunto 40 sano iskaga dhim adigoo faraxsan marka adiga dhib ku soo maxay aniga shacabka ayaan u danaynayaa runtan shacabku waa tusaya cid iga celin kartana midaas ma jirto hadda haddii aan ku fasaxno 100 qof ayaa ku soo raacayso berri haddaan ku fasaxno 200 ayaa ku soo raacayso berri dambe 1,000 ayaa ku soo raacayso annaga midaas uma adkaysan karno kuwa baanka gadaya xataa bannaanka ay kugu sugayaan dhimashadaada ayay sugi laayihiin ninka bannaanka noo soo bixi ka waya ka siinayna waan dilaynaa ma dhaafeen noo soo bixi ma maqashana dadkaas codkooda maanta adiga gacanteena ayaad ku dhimanaysaa waqti dhumiska ma xaway lakshmi gurigan mas'uuliyadiisa adiga ayaan dusha ka saaray aniga ninkan waalidkaan u ahay agteyda wuu ka dhintay waxaan rabaa markuu guriga imaanay sida booyaas oo kale inuu noolaado raashin oo kale ayuu ugu leeyahay aniga wax xaq oo gurigan ku leeyahay ma laha reeqiisa hore u qaatay waa la qasbayha ka war fugana usoo qasbayo qof asaga la socdo iskuma soo dayayaan ku dhaay siyaasadda inuu soo galo mina u soo dhiiradana waxaan ku sheegaa in qabtaan jarjar ahaan ku dhaay hilbihiisa in jarjaran goobeeyan suuqa ka yimina jeebarsad ma hadade waa mahadsantiin maadaama familkeyga dhan aad sidaan u qiimeynaysaan waa idinkaga mahad celinayaa mideeda kaleeta siyaasaddan aniga wax kale uguma aanan soo biirin ee waxaan ugu soo biiray adinka inaan wax idinkugu qabto maana loo baahnayn adinka shaqooyinkiin inaad ka soo tagtaan aniga ayaa lugaygu idinkugu imaan lahaa alla dilaa dhinta saaxiib ibna aadan oo wax dili karta ma laha anigana waxaan u taaganahay xuquuqdiin inaan idiin soo dhiciyo oo aan xaq idinka gelin adinka haddana diyaar ayaan u ahay dawladdii dhan wasiiradii oo dhan saraakiishii oo dhan dadkii sharafta lahaa ee dadweynaha cisaya ayaa magaalada ku dheelaya dalkooda hooy ku dheelaya masaakiintana dhiiggooda cabaya beddelkay biyo siin lahaayeen garabna siin lahaayeen dadkan waa burcadda magaalada waddankayna u dhasheen ayaa la leeyahay waddanka uma dhalan meelay ka yimaadeen lama yaqaano halkanna waxay u yimaadeen masaakiinta dhiiggooda inay cabaan sida biyahoo kale waa fiican tahay qaylana waa ay ku dishay tabac cidlaa iyo xarafka ta'da ka wareerta inay maanta oo dhan nugula tabac lahayd laakiin wax ku suurtagelaya male adiga waa iska qaylisay intaad qaylin kartid feerahana waad iska dillaacisay hadda maxaad ka faa'iidaysaa aniga dadkoo dhan ayaa i taageersan
dembi kastoo aad igu soo ogto ma kuu suurtagelaayo lagu aamini maayo haa shacab weyne oo dhan waxay sugayaan waa aniga hadalkayga ayaa ku soconaya biyo camal ayaan u siinayaa oon hadduu qabto hadalkayga ayay ku oon baxayaan dabbaal waa iska cabaadaysa maanta dhan maxaad isaga qaylinaysay maxaad iila tashan weysa aniga muufo ayaad maraq la'aan cunaysay dadkiina soo doortay cod ayayna siinayaan kadib ayaan meeshaan rabna gaaraynaa haddii aadan sidaas samaynin waxay noqonaysaa arrimahaadoo dhan hal bacaad ku lis marka adiga dheeshaasoo dhanba ma soo marin nin masaakiin oo jiibjaab ayaad iska aad waxaad rabtaa inaad annaga nala tartanto taasina mid kuu suuragelaysa maahayn waa inaad isdejisaa caqlina dheeshaa laakiin caqliga mar hore ayuu ku ahaa hadda meel dhexe ayaad ku hartay inta maxaa soo doontay adiga soo idaacadaha iyo joornaalada ma akhrisanin miyaa inaan aniga kaa wood badiyey adiga cayaar ayaad waddaa laakiin annaga waxeenna sharci waaye adiga meeshaan waxba kuuma yaallo waad inaad iskaga dhaqaajisaa orod naga hortag waa kana fidno dhan ninkaanaa ka dambeeye ninkaan ayaa ka dambeeye fidnadaasoo dhan waa dilaa waa burcad ninka dadka laayay oo dhiigga iyo dhacaanka ummadda qaba waa ninkaan aad u jeedaan dad badan ayuu qabyaa aniguna khatar walba waddada loo mara ayaan aqaanaa waan ku imaanayaa waryaa janguura wejigaaga maanta waxaa ka muuqdo calaamad gaduudan waxaan u malaynayaa askar badan inaad soo dhammaysay waa runta kabsaska sida masaska ay u necbiyeen ayaan anigana askarta u necbahay waxaan kuu sheegayaa maalin waxaa dhici doonta dowladda hindiya askar u shaqayda laga wey doono waa in aad qaadataa hubkan faraha badanna iyo qoryahan oo aad baxdid oo magaalada dhan soo baabi'isaa anigu waxaan doonayaa dowladda hadda ka dhisan in aan baabi'iyo oo aan ka dhiso dowlad aniga aan u taliyo annaga dhulkeenna hooyo si dheedheele kuma baaba'ayo waayo dhulkeenna hooyo dhiig iyo dhacaan baa ku soo baxay canaasiirta isku dayaysaa inay dhulkeenna hooyo baabi'ido gacan bir ah ayaan ku qaban doonnaa annaga middaasna waa igu ballan aniga sidaydaba tan okiyaalla gashta zaid cawir waay fiir wax maa luxuu masameeyay waay iga tag waryaa iga helne horay wax badan gabdho waa tuugana boo ku jecla way dheen laakiin markaan tan in aniga tuugi doono malayna waxaan ahay joornaaliste magaceyguna waa Siima waxaana rabaa inaan ogaado goorta la qabanayo burcadda oo waddankeena inay baabiyaan rabaan waa muddo dhow burcadda rabta inay gobolkeena baabi'ido waxaan qaban karnaa markay dawladda iyo shacabka gacanta isqabsadaan oo si wanaagsan looga hortago loona hujuumo burcadda doonaysa inay waddankeena hoos u dhigaan horta aniga waxaan iiweydiiyaa shameen anay wasiir naqaa hore iyo gadaal ma u shaqeeyey shameen naqaa wasiir ii sheega baan in tuugaya taleefanka waxaad iigu dhahday inaan kula kulmo ayaan rabaa kulankaaga ma waxaad iigu tusayday inaad tahay nin garbihiisa hub lagu ilaalinayo aniga sidayda afkayga hadal kama baxay holac ayaa ka baxa marka sidaa darteed meel kasta oo aan aadayo staff ayaa ila socdo waxaa kuu roon aniga inaad ila saaxiibtid waxaan kaa dhigayaa xabad markii la maqlo dhawaaqeeda dawladdoo dhan ay wada argagaxayso haddii aad isku daydid aniga inaad xiriir ila yeelatid xabadda aad sheegaysa xabad ka dhawaaq kulul ayaan anigu dhagahaaga ka yeersiinayaa adigu waxaad damacsan tahay shaarba libaax inaad ku ciyaartid aniga ima garanaysid anigu waxaan ahay maroodi markuu doonana geedaha jajabinaya markuu doonana geedka dhanba xididada u rujinaya oo gadaashiis ka tuuraya war adigu waxbaa isku matelin maroodi ee bani'aadnimada ku ekaaw ee waxaan kuu sheegaya aniga mar dambe kulan haddaad ila yeelatid aniga neefta ayaan kuuga celinayaa ogow saddex bil gudaheed 30 mar ayaan kula kulma adigana waxaad weydiinaysaa magacayga mar kastaba markii doorashada aan kugu ololay jiray magacayga waa xusuusneed ma ii sheegi kartaa hadda waxaad magacay ku ilmaantay aniga magacaaga waan xasuustaa ninkaan haddaan magaciisa sheegnay madaxweyne camal ama ka dhignaba bulshaduna waan ogahay inuu sumcadii sharaf ku leeyahay dembi maan leenaa markaanaka kulama hadlo warkayga bargoynin yaaqe marqaanjabaygu ridin ii wad warka war ninkaan aa u jeedid bombay ilaa kalkataa sida madaxweynoo kale loo ciseeyaa
marka haddii aan magaciisa sheegna dambi maan leenaha marka annaga haddii aad gabar shukaansanaysid magaciisa haddii aad sheegto waa ku ogolaahayaan ku dhah shilin ma lagaa qaadayaan ku dhaha lagu siinaa waxaa kaloo kuu soo haray isbitaal markii aad tegaysid haddii aad magaciisa sheegtid waa lagu fudina walba horta nimankan kuma yaqaana waa iska joogaan meesha shaleema haddii bilsado tikid ma la goyn karaa waa maya aniga horta darta aanba ku galaaba shaleemada sababtoo ah cid ila hadasho ma lahaba aniga waxaaba ka sii daraba magaalada gudaheeda adigoo gaari wato oo jaam ah haddii taraafig ay ku qabtaa mataqaanaa magacaaga haddii la sheego waa lagu sii daynaa magacaada marka kor waaya nimankaa kuma yaqaana anaa ku aqaano see waa babuji midaa hilmaamay madaxweynenimo 5 daqiiqa kaaga dhiman annagu wasiirnimo ma waxaan kugu doorannay inaad askarta aad nagu soo dirtid oo har iyo habeenayna garaahaan annagana har iyo habeenba bannaanka iyo qorraxda ayaan ku qaylinaynaa si carruurtayna iyo haweenkayna ay baahida uga baxaan an waxaan ku hayaa shicib kacay shini waa ka daran yihiin shicibkaas marka waxaa la rabaa unaka inaan maaweelino laaluushna aan siino telefishinkana cawadi aan ugu dayna filmaa ay ku raaxaystaan dhammaan madaxdiina sharafta leh waad salaamantihiin annagu haddaan nahay madaxda dawladda ma aha inaan ka fikirno oo keliya horumarka dawladda waa inaynu ka fikirnaa xuquuqda bini'aadamka idinkuna waa la socotaan waddankeena indiya inay ku nool yihiin masaakiin fara badan oo gaajo haysa marka annaga maxaa noogu gudboon inaan masaakiintaas baahida ka tirnaa mise horumarka dawladda keliya aan ka fikirnaa middaas ayaa idin weydiinaya waa hadashi hadalkaana laga rabaa aniba booska aan dijoogi lahay sidii u hadashi ka darna waan dhil lahay waa runtaa hadal aad dhehaysid anaga maahan danaheen oo keliya inaan ka fikirno waa inaan ka fikirnaa xuquuqda bini'aadanka masaakiintana waa inaan ka tirnaa baahida waddankeena kuma yaro warshado ray ahaan aniga waxaan qabaa dawladaha shisheeye inaan xiriir la yeelano xiriirkaas oo ah xiriir ganacsi anigana faa'iido ayay noo tahay aniga shir waxaan ku darsaday intaasoo hadal ah tiitiin haddii ratid qodiciidno inaa u adkaysataa haddii isku duro annagu waxaan qabaa inaan dawlado shisheeye wax gacansaar la yeelan mana qabano inaan gacansaar la yeelano dawlado shisheeye kahor waxaan gumaysan jiray ingiriis dhibaatada laga soo gaadhina waa la ogaa ani hadalkeysaan lesahay tiitinkii sheegay waan soo baxay ninkaanaasna duri labba way dhammaan dadku walciiw waddankeena maalqabeeno badan waa ay joogaan kuwa maraakiibku socdo kuwa dahabka ganacsado kuwa warshaday leeyihiin marka lacagtooda haddii ay ganacsi ku sameeyaan waddanka ayuu faa'iido u yahay anigana faa'iido ayay noo tahay ganacsi gudaha oo keliya kuma saabsan dibaddana way ku saabsan tahay aniga waxaan ka hadlayaa oo keliya danta waddankeena hadalkaaga waa sax joodri runtii anaga haddaan xiriir la yeelano dawladaha shisheeye macnahayga xiriir ganacsi anagay faa'iido noo tahay dalkeena bay faa'iido u tahay masaakiintani baahida way ka tirimaysaa waddankoona lacag buu noqonayaa lacag wax la yidhaha ma jirtee waddan wuxuu isku bedelayaa olol wax la yidhaha faa'iido oo aan helayna haba yaraatee ma jirto dawladaha shisheeye wixii faa'iida iyaga qaadanaya dadkii dabaqyada saarnaa qaybta dhexe ku soo dhacayaan dadkii qaybta dhexe saarnaana dhulka ayay imanayaan dadkii buusaska deganaana laamiyada isfurayaan iyagoo baabaa islaamiga waan rabno inaan dawlad shisheeye aan ganacsi la yeelno barkay waan dhacayaan warnaga ams adigoo kale mahatma gandhi dhimashiis u sababa adigoo kale ayaa baahida waddanka u sababa aniga waxaan ka leeyahay ganacsiga waddanka adigu ganacsi maxaa ka taqaanaa markaad leedahay dawlad shisheeye xiriir ganacsi ah lama yeelanayno anigu waxaan ka fikirayaa uwax waddanka iyo mustaqbalka waddanka waxay qurunka ah wari aniga hay waafagaado waxay qurunka ima caayi kartadaa quruna qarmuuneh adiga sariicayda adigoo kale ima caayi kartadige aqoonlaan baa u kalaaba aniga meesha doontaa ila tagto waan kula tegaya waxaad tihiin cadowga dalkayga hadalkaygana si fiican oo dhegaysta intaan anigu magaaladan ku noolahay idinkoo burcda dalkayga hooyo inaad wax ka qaadaan lagama yaabo waa laysku baaba'aya mooye kumaando vijay miyaan iska qaban la'nahay aniguu hubkayga qabanayaa marna ciidamadeeda ayuu qabqabanayaa war aniga dadka uu dardaaranaya miyuu imoodaa kumaando vijay kaaleya aniga ima garanayo war aniga sunta jirkayga ku jirtaahi waa ay ka daran tahay tan maska oo kale kumaanta vijay u sheegay inaan ahay jahalka magaaladan ugu daran uguna xaasidnimo badan waa cunaa wax jijibinaya waana dhuuqaya kelabka waryahe xaggeed ku socotaa anigaad isoo xirtay markaasaad iska dhaqaaqaysaa kaalay mid taqaana aniga waryaa naasiho haa si fiican baan ku aqaanaa war dad badan oo masaakiina ayaad nolosha ku gubtay dad badan oo masaakiina ayaad ciidda ka hoos marisay ciiddaas aad ka hoos marisay isla ciiddaas ayaa dadka soo dhashay dadkaasna waa aniga adigoo kalena ayay baabiyaan
war aniga dadka ciidda ayaan ka hoos mariyaa laakiin adiga aanan niido waa tahay intaan ku qasto ayaan yaro ku dhuuqaya waan ku caabayaa waryaa idingays adigoo kale aniga iima booteeyo dadka neefta qaban faran ku dilaa inaysaa sida ay laf waayoo kale markaasaad aniga ii booteynaysaa anigoo military ah commandoska lagu dhaarta ayaan ahay haddii lagugu dhaarto waa laga dhaarahan ku yidhi aniga haddaad iga badbaado koofi madoobe ayaadan ka badbaadi doonin ma waadan ka shalaynaysaa waryaa maalin maalmaha ka mid a waxaan nii sheegaya hanguri cunoole ma taqaanin biicawoole ma taqaanin mubsir waa kusugiyo saliid maxsar waa kusugiyo ma taqaanin master maxaa loo soo badbaadi waaye master inaa la soo badbaadiyo daruuri waaye macnihiisa waxawaaye lama huraan haddii kale kulligiina كبع كل وقتي جيب مضل حجيب بالكرالنا عنك نك خولي عمل با صندوق ويدلي حجيب بالك حركة نك كمان في جينا وحاب بلنا إن أنا نقول لقيه هستو ذكينه مركز كدبنا وكشلينا حبسي دحيس أيا أنا قد القبض يوسعون أسينا هو مريا كاسو كله حد أيان جوها ويل كاجا مر هريان نهي أنا أمان إسي عيدا كيجا نبت قلي دور جير مركان كو علعلي وركا واعيقا ديدي لكن وركي سمحان كديجي سان إنا يلا نسيفتي ذا أمري ورشخالة حل درت هذا ميا ويل كيجا أنا قد ليس أي شيء هذا dadka ani ii joogaan shaqaale inin sharaf leh makala baxsana dhiigooda miday ii yihiin haddii adigana warka aad badisid beer camal haddaan kuu shafo waayaan ku dhahay habartay xalaal miigu dhali muddo 2 maalmood gudahooda qoladii ku guuraysa dagaalkaas xilka boqortooynimada hal san ayada haynayso haddii qolada kale ee keento wax khallaasa ah ama arbushaad ay ku samayso qolada boqortooyada ah anaga ayaa talaabo sharci ka qaadayno taasaana lagu keeni karaa xal waara oo nabad ah shacabkan ay ku badbaadi karaan taas xal uma ah labadiina boqortooyo keliya ee waxay xal u tahay shacabka idinku hoos nool oo idin oo dhibaatada ku jira waa inaad shacabka u danaysaan dadkayga inay dadkaas dhibaato gaarsiinayaan aniga ayaa ballan qaadaya waa haddii ayaga laga helo laxbugta ku hirtisa taas ma dan noqdahay maya idaafa iiteeyaan ku dhahay kan iyo xulufadiisa hal xaajiima buuxiyaan lama baryadin ku dhamee waay beenaan ii sheegi qaalib soo dig dadkaas inaan dagaal ku soo qaadayo suldaan sidee kaa noqotay ninkaas sanad iyo saacada iyo sikimaba nimankeena ayuu dhameeyey adigana hadda dagaalka haddaad gasho anaga yaa noo haarayo mise xaaraankaas xaaraan ku dhalay khabaan u wada noqonaynaa kulligeen markuu dhalanayo markuu dhimanayo min allaahi ka qoran tahay wax walbaba anigana nasiibkeyga kolley gacanteeda ayuu soo gelayaa dadka masaakiin mihiinta oo xaqooda la gelayana inaan badbaadiyo waa hobbigeyga waa noo dhammaatay eber waana la xaalofiyey annagaa hoogna waana bixiyeen kuwan waana bixiyeen inkaartii mandhici weyn ha ku dhacda kuwan sibda shiirayo war la soo shoobiya aniga ma aqaan aniga ilaa iyo ninka la yidhaahdo surya banshi gacanteyda dhiiggiisa as soo gaarin degnaan ma helaayaan ku dhahi sheekadayga joojiya shoo isorac suldaan suuriya waa yimid suldaan suuriya markiisii maalimin minkeena dhan waa gubtay akhay sacbalati surya mininka haddii isku ishaar bihaygan xaqin camal ugu xaaqa suldaan suuriya suldaan suuriya berita u sheeg ninkan inaan dagaal qaadi doonno aniga beri inaan dagaal qaado diyaar ayaanu ahay cagtii joogsa weyse mar bay ceeb la kulantaa ishii wax xun arkaysana waa dhici afkaha disdibka buxa aniba gacanteeda dabaada oy kashiito haa mudane ninkii adeegga u gey aan ku dhahay dagaalka diyaar ha u ahaado miga cabsada shaarbihayga maska cabsadi intaas gali ma dhuuntii ninkaas nin ballanta ku dheer waaye oo boqortooye ah waana imaaha waa huwa mudanikaas kaale aniga adeeg ayaan kuu dirni mahayne ninkii inaad noo ammaanta miyaad noogu timi meeshaan carabkaad ku ammaantay ayaan kaa goynayaa aniga caafimaadkayga waxaas ku jira hashan il waxaan kala furaa suryaa bartaabsiin hilibkiisoo jarjaran markii ii keentiin oo ay idhahdiin hilibkiisa waaye keligeygana ma cunaay ballan waaye eeyadaan siihaa ii keenaan ku dhahay nolol ma ku rabi ninkaas aawe ninkii aad ku faanayseen oo dhahayseen dhiigii cab waaye ma dhunta markuu maqlay rag inay ma cabsanin
waa libax libaxna sidiisa ma cabsado beledii baadiiba si xuraaya wuxuu uga ogaarsadaa soo moogid adiga شو وريا aniga haddii aan gacan qaadayo dad ayaan ugu gargaaraa laakiin dadan dila haddii aan dhaho kan qabuura ka dhiga maanad igu arsanaysaa hore looma iba sheegin ay inuu libaax ugaarsado aniga maanta gacanteeda waxaan u qaaday dad ayaan badbaadiyey laakiin dadan dila haddii aan dhaho ugu faracaaga ayaan baabi'inayaa aniga ee waxaan rabin inaan sameeyo hay u kalifin adiga iyo shabac tiirka شو وريا عور ابليس اللي يرادا تتكلم وهي قانم هل ما يدين كريباي ما حد ديلك كرتا اديك عيد اديلك كرت ملها اله واحد ديلك كره الهنا واحد نولين كره ابن ادم هدي u badato qof dhinto oo kaliya ay duuy karaan ma ahane qof nafta kale duuy kara aniga waxaan ku dhihi lahaa cadaab hoostooda ka socdo badbaado aan dad badbaadina ayaan hadda gacan u qaado laakiin qofan dila haddii aan dhaho ogow adiga familkaaga ilmahaaga idaba dhilafyada adiga kula socdo kulligood dhulka ayaan ku darayaa waxaad waynaysaa nin rag oo adiga kuu dagaalama maanta dhulkan sharaftanaan ku dhaartay cirkaanaan ku dhaartay mar damba haddii aad isku daydid in aad tillaabo soo qaadid ogow inaan dhulka kula jaraayo maanta laga bilaabo suryaa bartaab ayaa amarkiisa meeshan uu ka soconayaa cid kaloo amar dhiibi karta ma laha suldaannimadana ha u malayn iska doondoon in ay tahay ee waa loo dhashaa kuwaan odayaasha xaafadda waa inay ku mahad celiyaan ay umaadeen marka adiga sidaasay ku socdaan waa ku salaam wiilkayga waa idinka qaaday muddo 25 sano ah ayay dadkan nagu tumanahayeen maadaama gacan aad u qaaday dee nafteenna xataa waynu ku huraynaa waa ku garab taagannahay ha ka baqin dee mitaa hal mid sameeya haye beerihiina guba ya guryihiinana burburiya haddii beeraha la guum ha cunana unu teeda kale haddii guryaha kaguna intay tegaynaa war hedha waxaad ka fikiraysaan haddii adduunyo markaan idin dhaha beerihiina guba waxaad dhahdeen maxaan cunaynaa annaga markaan idin dhaha guryihiina burburiyeyna waxaad dhahdeen halkeen ku hoyanaynaa war hedha haddii adduunyasaan ayaad u qadarinaysaan ood u qiimeynaysaan naftu alla idin siiyey maxaad u qadarin laadihiin markaad dagaal iyo fawdo iyo balaayo iyo dhiig in la daasha aad u horkacaysaan maxaad tihiin adinka maanta wixii ka dambeeya ma ogoli dagaal inuu gobolkan ka dhaco dhiig dambe in la daasha ma rabo naag dambe inay asaay saarata ma rabo ilmo dambena inay agoon noqdaan u ogolaan maayo aniga dagaalka meeshaas ayuu ku egyahay ra'yigaada ma xuma annagana waan tiro raacnay laakiin anu raarintaas ma nana ogolaan ma laga yaaba taas inay dhacdo cillada waxay tahay ilinteeda siday u kulushahay intaba aniga ayaa og marnaba ma ogolaanayo dagaal dambe inuu meeshaan ka dhaco ballan aniga waxaa idinka qaadaya nabad waarta inay dhacdo ee adinka isdejiye eera idin rajeynaya dhallinyaro waa idin digayaa meeshaan waxaan doonayaa inaan gacanqaad ka dhicin haddii uu gacanqaad ka dhaco ogaada cid badbaadaysa ma laha meydkiina waa la raadinayaa ee iska tagaa idin dhihi lahaa socda meeshaan ka taga inta aadan dhimanin hadda qalbigayga jacayl ayaa ka buuxa ma fahanteen hadalkayga maskaxdeedana degganaan inta aanan mowqifkayga beddelin waxaa idin hor inaa horteeda ka dhaqaaqda haddii kaloo ahayn meydkiina qofkii qaadi lahaa xitaa ma dhaafayo aniga war adigan oo waraabowga isku ridaayo ma awoodooda ogta inta leegta awood ah ma adiga awood leh quraanshada si kastoo u xarakaysa wariiri ma noqonayso muddo 25 sano ayaad ku fikiraysa markaan soo laabtay inaad didisho saacadba saacad sakanba sakan waad isugaysay laakiin maanta aniga ayaaba ku soo doontay mar hore waa ku imid waana kuu digay waxaan ku iri ha igu kallifin inaan hub qaato oo aan dagaalka galo waa diidda adiga maanta aniga ayaa lugayga kugu imaaday familkeygana waan soo wada waxaan rabaa dagaalkaad adiga bilowday meeshuu ku dhammaanaya inay indhahooda ku arkaan dabadhelifyaasha kula socda waxaan ku sheegaa ninkii naftiisa jecel meeshaan ha ka tago ninka kaleetana ha ogaada gacanteeda inuu ku dhimanayo naftiisa maanta aniga ayaa dhaafinayo
war heedha mala socotaa qofka markuu dagaal galaayo waa guulaystay iyo qofkaasaan ka guulaystay sheekada ma aha ee dagaal qofkii gala saan ayaa u dambaynayso dagaal sidiisana wiilkuma dhashay wiil ayaa ku dhinto ma fahanta hadalkayga haddaad u baahato qof dhakhtar in laguu geeyo laguu daaweeyo aniga i waco 10 sekond 10 saac 10 sana ka soo wareegta diyaar ayaan ku ahaa aniga waxaad rabto aan kuu samaynayaa laakiin aniga waxaan ku dhihi lahaa falalkan qabdarada aad ku socotid ka waantow haddii kolehan god ayaad u gelaysaa masaanaad ila rabta 20 sano 20 sano kadib masaanaad ila rabta inaan kuu aflagaadeey aan kuu celis dad hortooda naga tag nacalad ba adiga kugu taalle adiga qof xun ayaa tahay war shicibka haddaad u kaalmayn lahayd aad quudin lahayd dadka masaakiimiinta oo dhibaataysanna dhibka aad ka saarnayd waa lagu ducayn lahaa dariiqdan way ku xusi lahayd maanta dilkaaga waxaan ugu joogsan ma taqaanaa waalidkayga oo kale ayaa tahay adiga iska noolow ku dili maayo waan ku cafiyey iska bax 70 jir eegoobiyaan ahay dagaalkaanaa bilaabay aktoorihiisana ahay laadarkiisana noqday markaan waa waayeeloobi been cilmi shaydaan waaye runtaadas ahay dagaal wiil ma ku dhasho wiilaa ku dhinta laakiin aniga awoodda aan lahay iyo kibirka aan ku faanay iyo awooddayda aan dhahay dadkaan ku baabi'i qofka qalbigayga ka saare adiga ma aho masle kale waaye rakkaroonayna tahay waa kuu khiri igaarkay faarax dhukurane faarax agshay waa badbaadi digaygas degi ummaddii dhammas kasbadi anigana waa ay kasbadi isku dadayasha dameeraa kugu roogi aniga daysashaalkii hore iyo dagaalkii waa iska dhaafi dadka ay isku taagtaagayo xooggayga aan ku tashahay imaantama jiro dadka dhan waa kuu sacbiyooyin dadka yay u sacbiyaan makasee masaakiinta ninkii awooddiisa xaq ay tahay awooddaada aday xaq tahayaan ku dhahay boqortinimada intana adaa iskalean ku dhahay bilaahi badan khasiyaanka roob ninka duwaajaa la dhahayo idinkana waxaan idinka doonayaa inaad noqotaan kuwii ku garab istaagi lahaa hawshaas aan aniga u dooranayo mana rabo in aad ka hor timaadaan waxaan rabaa mar walba inaad garabkiisa istaagtaan waana mahadsantihiin marka hore isbarashada hanoo dambayso muhiimadda ayaan ka hadlaynaa anaga waddankeena wax walbaa yaalaa laakiinse horumarkiisa dib ayuu u dhacayaa taasna waxaa ugu wacan waddankeena oo ku nool dad fara badan oo daacad aan u shaqaysanayn iyo dad fara badan oo ka soo horjeeda dadka daacad u shaqaysanaya iyo dad fara badan oo kursiga ay ku fadhiyaan ka faa'iidaysanaya si khaldanna u isticmaalaya dad fara badan ayaa jira oo sharciga waxyaabaha u diidaya sameeya dadkaas markay magaalada marayaan dil dhac boob iyo waxyaabo lamida ayay sameeyaan arrintaasna sharciga wax kama qaban karo waayo laaluush ayay siiyaan waardiye ilaa iyo madaxweyne way og yihiin dadkanoo kale oo tuugada magaaladan inay ku nool yihiin laakiinse wax kama qaban karaan igaraa lahada runta in laga gambado qalad weeye mideeda kale qof walba feelkiisa halkan ha keeno baawur ha ku baxo bas ha ku baxo diyaarad ha ku baxo helikobtar ha ku baxo wax igama gelin laakiinse waxaan doonayaa saacad gudaheeda in feelashoo dhan halkan laga keeno waayo qof walboo jiran ama caloosha xanuunta ama madaxa xanuun feelkiisa anaa furayo ma garateen dhaqso sidbaad adoo daldalmays nool dharisyo tiyeli feelashaas dhan kulligood waan finishayaa ya tallaabadaada koowaad alla taraaraxmi sidaad la wada socotaan hadda ka hor muddo 24 saac ayaan hayay jagada wasiir dowlaha
marka waxaa idinka codsanayaa sida daacadda oo aniga aan ku hayay idinkuna hawshana inaad ku gudataan waddankeena xasiloonida baahi ayaa loo qabaa dhibaatooyin fara badan ayaa waddankeena ka dhaca dad badan ayaa isdila mararka qaar waxaad arkaysaa dhibaatooyin aad u waaweyn inuu waddankeena ka dhacayo annagana isla markaas aan wax ka qaban karin marka taas in la raaca maaha waa in la raacaa qaladka meeshuu ka yimid waa in la toosiyaa qaladka meeshuu ka yimid marka taas darteed ayaan go'aan ama fikrad fiican u keenay waa sanduuq sharciga laakiin mudan anagu sanduuqan kumaan dhaqmi jirin haa kuma dhaqmi jirin laakiinse hadda wax ka bilowdo waan ku dhaqmaynaa waa sharci dadban qof walba oo dacwad qaba ama qof walba oo dhib loo geystay dacwadiisa warqad ayuu kusoo qorayaa kadibna sanduuqan ayuu ku ridayaa sanduuqan waxaa loo baahan luuq walba in la geeyo xaafad walba in la geeyo dadkiina waxaa idin sheegayaa haddii aad weysaan nal haddii aad weysaan biyo haddii aad aragtaan waddooyinka inuu jajawan yahay waad ka dacwoon kartaan wasiir haddii aad ku aragtaan qalad ama haddii aad aniga khaladii u aragtaan waad igu dacweyn kartaan 24 saac gudaheeda ayaa qofkii khalad gala tallaabo looga qaadayaa dhibkii weynna waxaan ku xalinaynaa ilaa isbuuc maalintaan arko sanduuqan inuu maran yahay waxaan ogaanayaa dowladdeena inay noqotay dowlad caadil oo nadiif ah haye migu raacsantiin marka dadweyne yaan laga cabsoon dacwadaas qofkii dacwad qaba bokiskaasa ku rido siyaasaddeena si khatar ayuu daba taagan yahay taa waxaaba ka daranba meel walbaba sawirkiisa ayaa ku dhegan asiga ayaa la taageersan yahay marka aniga waxaaba iga haysaaba inaan gobolkayga ku noqdo basbaaskiga iska iibiyo maxaa tiri gobolkaygan ku noqonaa basbaasaan gada yaa kuu saamaxaya horta basbaas inaad gadid yaa kuu saamaxaya qoofka noogu haya war wax walba oo siyaasadayna ninkaa waa soo fogay war ninkan haddii aanan tallaabo aanan ka qaadin oon asiga xabsiga aanan geyn annaguna geynayaa marka ninkan nin khatara weeyaan inaad yaraysataan maaha gobolkaygan basbaasku gadaa xal ma noqaysa xalkeena xal in la keena loo baahanya war salaamantiin idin haanba halkan waxaa maanta marti noogu ah ra'iisul wasaaraha qadadka taleefanada uu noo furan yahay wax aad su'aalaad qabtaan waa weydiin kartaan walaal halkee ka soo hadlaysaa magacaagase waa ku salaam ra'iisul wasaare waan kaa qaada mudane waxaan deganahay tuulada ugu horreysay ee codka kugu shaqeeya garta ilaa haddan dib nooguma soo laaban maxaa jira mudane horta tuuladiinna waxaad ka caawada jirteen koronto la'aan hadda soo korontada laydima soo dayn ii sheeg haa mudane mideeda kale biyo la'aan fara badan waad ka caban jirteen ayadana hadda soo biyihii laydima soo daayay ii sheeg bal ii sheeg midaas haa mudane mideeda kale tariinka muddo 24 saac kadib inuu mar idin yimaado ayaad ka caban jirteen balse amar waxaan ku dhiibay inuu 2 saac kadib idin yimaado balse hadda soo idinma yimaado ii sheeg bal midaas haa mudane waa idin salaamay mudane tuulada sirka wax weyn ayaad u qabatay sidee ku fikirtaysa adiga aniga horta madaxda dalka ayaan ka mid ahay marka waa laga qurxoon yahay hal tuulo keliya inaan wax u qabto su-aashideeda mar haddii aad madax tahay mas-uuliyadda dalka oo dhan ayay kaa saaran tahay balse tuulo ama gobol keliya inaad ka fikirta maaha wasiiru dalaw soo bax tariiq sare haye halis diyaar garay dhaqsada waxba aroos maan qabnaa aniga gobol ayaan u socdaa waxaana baawurna looma baahna may tali anaga waxaan ku qasbannahay mar walbaba nabadgelyadaada inaan sugno sidaas darteed aan ku dabaraacina waayahay dhegayso waad maqashaan u malaynaa wax meeshan ka dhacaya haddii aad shicibka wanaag tusi lahayd maanta iyaga ayaa ku dooran lahaa aniga imaadan imaadeen casharka aad wadda horan u akhristay kowdhe martaan ka dhaqaaji waxaad wadda wax kuu suurtagalaya ma aha waad bixi karta waa ku barya abkaa magana saasaan dhihin hal mar oo kaliya 5 daqiiqa si qolku wada shirno macnaha waa ku barya higa diidin abkaa macnaha waa kula hadlaa inaan kula hadlaan rabaa walaalkaygi waa ku barya abkaa magana higa diidin garab isi oo ila jir haddaad ila jirto waa huba inaan guulaysana ciidan fara badan shicibkan adiga ku taageersiin wax walbaba waa toosina lacagtii hantida aniga weydiiyan kudhawa kugu faraqa waa kugu wareejaa waa ku barya higa diidin abkaa magana aniga haddaan u baahanahay rednow meeshaan waan kugu dili karaa sababtan kuu dili waana maxay tahay ma taqaanaa aniga sharafteeda inay hoos u dhacdo inaan diidanahay waxaad rabtaa aniga inaad idisoo booskayga tiijaa aad keento
war aniga haddaad i disho oo aad adiga booskayga gasho dhib ma laha adigana birito waa lagu dilayaa anigaba booskan markii aan soo galaya qof ayaan ka dishtay dilaa kasta dil ayaa u dambeeya middaas ha iloobi oo adiga kaalem waxaad moodda siyaasadda shaati cad inta la soo xirtay in layska soo istaago oo markaas madaxtinimada laisku sharaxo wareedha siyaasaddu waxay u baahan tahay aqli fara badan iyo xigmado haddaad i weyddiisileed laga yaaba inaan ku oggolaa balse calankiigaa rabtay inaad hoosu dhigto laakiin dawaajaa calankiisa waa kor wakhti walba wiil weji libaax hawshan inaad qabanayso anigu waan ku jiifataas sidaas darteedan kuugu dhiibaan ku dhahay hawsha tani waadna ka soo baxda magaalkan adaa maamulahaya magaalada jawgeeda hadda maxaa laga dareemayaa ii sheeg adaa ku leh cid kale kaama hor imaan kartaan ku eri cirkaad ku dubaysaa hore u socda igu halle ayaan ku eri aniga waxaan u baahanahay basintaa oo dhan inaan gacanteeda ku maamulo magaaladan miyaa rabtaa inaad gacanta ku dhigto akhbaartaada magaaladan maahayna waddankao dhan ayaa laga og yahay waa laga dhan yahay magaaladan keliya ma maamulaysid jandigaagar xataa adigaa maamulaya duwaajaa aniga waan fahmi karaa xanaaqaada siyaasadda sideedaba dad cusub haddii ay yimaadaan isbeddelna wuu imaanayaa ninkaas lacagta uu qaatay ballan waaye waa laga soo celinaa waxaas khalad waa mudane madaxweyne idhegayso duwaajaa warbaahinta sida ay sheegtay